وأنا هذا لكن وحير بانكران فهمي سنة ها muddo bila ayay magaalada Muqdisho oo dhan joogtaa waxaana loo keenay in ay meheraddan u samayso bunka halkan dhalinyaro ayaa fadhida xiiseynaysa bunka iyo sidoo kale cuntooyinka dhaqanka u ah wadankeeda sida canjeero daafida iyadoo af Soomaaliga way bowsataa ama erey ayay ka taqaanaa xaaladda meesha ka jirta oo dhan way ku jahwareersan tahay bunka sida ay dalkeedii Itoobiya ka arki jirtay looma isticmaalayo hase ahaatee waa la xiiseynayaa waxaan arkay markii aan soo galay in indhaheedu ay taagan yihiin marxaladda oo dhan ay ku jahwareersan tahay waxa la iskula hadlaya aysan garanayn waxaan go'aansaday in aan bal kula hadlo ereyada dhowrka maalmood ay joogta ay ka baratay afka Soomaaliga waxaa lagu iibiyaa sida ujeedaan bunka oo ah la arko oo soo badanaya sidoo kale cuntooyin kala duwan oo daafada iyo sida ay ka mid tahay gabadha walaashay ayaa bunka samaysa waa gabar u dhalatay dalka aan walaalaha nahay dariska nahay soo dhow magacaaga سميرة 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 ما شاء الله Soomaaliya Samiira adiga Itoobiyaan أنا إثيوبيان ay qowmiyada قومية أوروما ما حبشي ها Soomaaliya taqaan وحير بانكران ilaa intee taqaan وحير maxaa ka mid ah tusaale hadduu ku dhaho hadaan hadda ku dhaho bun isii waa fahmaysaa ها وانكران maxaa leedahay bun isii haddaan ku dhaho marka qof Soomaaliya uu bun ku samaynayo iyo marka gabar Itoobiyaan ay bun ku samaynayso macna ahaan iyo dhadhan ahaan xataa waa kala duwan aad uma sita Samiira أيوة magac Soomaaliya leedahay Samiira aad u macay thank you gabadhan waxa ay ka shaqeysaa meheradda Afro Dafi and Pizza oo ah meherad lagu gado ama lagu sameeyo cuntooyin kala duwan oo kuwa dalkeena kaliya aan ahayn walaal waan dhowahay maxamuud wariye maxamuud aad sharaf ay noo tahay inaad caawa hoygeen ugu soo booqato hoygeen ganacsi aad ugu soo booqato maqaayadan magaceedu waxa la yiraahdaa Afro Dafi and Pizza waxay ku magac dheer tahay oo loo yaqaan cuntooyinka eegada ayaa loo magac daray Afro Dafi and Pizza macaamiisha ku xiran Afro Dafi waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaan meeshii oo la bedelay oo casri laga dhigay cabeys loo sameeyay cuntooyin oo macnaa aan laga helin dalkan lagu soo kordhiyay sida bunka canjeero daafida cuntooyinka ma aragtay oo dabiiciga ah oo ay cuni karaan dadka dhiig karka qabo sokorta qabo inta bay cuni karaan dhalinyarada naagaha walaaca qof walba xiiseenayo cuntooyinkan oo Itoobiyaanka ah waxa meeshan والله dhalinyaro xiiseeyay jirto rag badan oo xiiseeya jiro dad badan oo xiiseeya jirto dad ganacsada ah oo aad u xiiseeyo oo markaan keenay fikradda markaan keenay oo aad noogu soo dhawaaday oo noo mahadnaqay oo macaamiisha waxaan kala kulannaa
hadallo wanaagsan wallahi ma sha Allah waxaan ka mid ahay howlwadeennada Afar Daafi Ambiza waan u badanahay ma sha Allah aad bay u qurux badan tahay inaan sii wadnaa rajayna maya Soomaali ma noo sameeyo waxaan noo sameeyo ajaanib aan noo sameeyo Ethiopian waa taa gabadhaas ka wareystay waa Ethiopian ayadana waxay ka mid tahay shaqaalada meesha ka mid tahay Ethiopian aan sameeyo wallahi aad marba nooca ku bixinaa anaga cuntooyinka delivery noo ku bixinaa inta badan delivery ku bixinaa cuntada free delivery leenahay mootooyinka freega ah iyo waxaan ku bixinaa ii sheegay fadhiga xarunta dad imaado soo booqdaa jiro dhowr nooc u shaqeynaa waa ka wariye ما شاء الله مركا يعني وبزنس كل السوق مركا شيء سومالي يا مع سومالي شخص رقم واحد يمكن سومالي يا كل سومالي دي لكن وحد طبعا مغافلين وقريبين في الدول الأجنبية زي ما قديس anaga horta waxaan rabnaa ilaa heer inaan gaarsiino xarun badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah ayaan furno ilaa waxaan rabnaa Afar Daafi magacan inuu gaari doono meel badan insha Allah higsigeena waa taa wallahi waa rajaynayna horta wax walba step waay hal mar malwada gaaro meesha ka soo kicinay aan ka soo bilawnay waxa waa ilaa ogaay Afar Daafi ma sha Allah macaamiishii halkan soo gaarsiisay aad ugu mahadnaqaa waxaan sameyn doonaa discount iyo wax baan sameyn doonaa insha Allah macaamiish ku xiran waa soo dhaweyn doonaa insha Allah xamuudo dadka page-kaaga ku xiran waxaan leenahay soo dhawaada Afar Daafi hada hore u aqoonin waa tababar waxaa meheradan sidoo kale cuntooyinka lagu sameeyo laga soo dalbadaa meelaha ka fog meesha ay ku taalo ee magaalada Muqdisho ama 17 degmo ee gobolka Banaadir maamulaha meheradan waxa uu sheegay in la asaasay 2020 hase ahaatee xilliga ay la koosatay xanuunkii corona balse gadaal ay ka soo kabteen magacaygu waa Cabdulla Saacid Maxamed waxaan ahay maamulaha maqaayadda Afro aad baa u mahadsantahay wariye soo feesane waqtigaaga qaaliga aan gelisay waana kaaga mahad celinaynaa xaqiiqatan maqaayadda Afro waxaa la aasaasay 2020 xilligaas oo ahayd xilli aad u adag oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba ay jirtay caqabadaha coronavirus-ka saasoo tahay waxaan bixinay dadaal dheeri ah waxaan dareennay maadaama uu yaraaday isku socodkii iyo dadkii maqaayadihii isdhexgalkii waxaan dareennay baahi ah inay jirto dadka in ay u baahan yihiin ayagoo maqaayadaha iyo goobaha bulshada isugu yimaadaan maadaama laga mamnuucay xilligaasna ay aad u adkeyd in bulshada isku yimaado hal meel wax lagu cuno baahi ah in ay dadku u baahan yihiin in guryahooda loogu adeego maqaayadda Afro waa maqaayad ugu horeysay oo magaalada Muqdisho ka hirgelisay adeeg delivery ah oo free ah Muqdisho waxay yeelanaysaa muddooyinkii dambe wajiyadii aan ahayn colaadda iyo qaraxyada